halaha kan ololaya waxa ay la olonayaan nin gal jira aan ba garanaya waxa iigu dambeysay hal aan liso 2005 baan dhihi karaa wagaawihi horeeyay ilaa kula kulmay mar dhow waxaan gelin doonaa warxabaalkii ama dabaskalaboodkii qof walba waxa uu yaqaano ba mar dhow gelin doonaa dahabkan ka jecelahay in laga bixiyaan maanta dahabka ka jeceshay geel dahabkan ka jecelahay haye sidoo kale dahabkan jecelahay hada geel maadaama aan dhaqan karin halka kan sidoo kale waxa ku diyaarsan fardihii ragga ayaan caanaha u shubaya hashatan sida uu aragtaan u jeedaan xagga dambe ayaa laga dabray sidaas waxa loo xidhaa lo'da waxaan filayaa nin loo leeyahay dabray hashad anigu waxaan u aqaanaa oodkac waa u aqaanaa muqmad waa u aqaanaa ilka yar waa u aqaanaa colob waa u aqaanaa halkan waa jigjiga hadda ayaan ka ambabaxaynaa waxaan u ambabixi doonaa meel geel fadhiisto oo dhowr kiiloomitir u jirta magaalada jigjiga oo la dhaho qaayib sidaan filayo meeshaas geela waxa loogu magac daray hal magaceed marka insha Allah halkaas aan gaari doona caawa waxaan dib u xasuusan doonaa waqti hore oo iigu dambeysay geel inaan liso xira geel aan gala geel aan fadhiisto marka bal sheekadeeda nala daawada hadda ayaanu bixi doonaa hadda waa dhaqaaqnay insha Allah waxaan rabnaa waqtigu waa adigu waa ilaa 5 galabnimo waxaan rabnaa inaanu geela wax ka soo lisno geelu ilaa 4 kiiloomitir meesha uu fadhiisto bay u jirtaa magaalada jigjiga dhalinyarada isla socona uga soo dhow magacaaga uga soo dhawahay magacaygu waa bile waa darawalka iyaga waa nin dhowr jeer maxay tahay xerada tagay rag badan geeyay bal bilow maxaa isleedahay baan kala soo kulmi doonaa niyo horta aan soo dhaweynaa aad baan ku soo dhaweynaynaa inaad magaalada Tisha soo booqatid horumarka deegaanka socodina adeegtid aad baan u faraxsanahay meesha waxa la dhahaa caanaha geela qayb laakiin kiiloomitir bay jirtaa niyo meelaha minimum waa ilaa 4 kiiloomitir waa meel dhaqankii yaalo bahal la dhaho muqmada kulay reer bariga waxa uu yaqaan ma garanay ilka yarti baa meesha taala qoladii reer koonfur oodkac halkaas ay taala ma fahanteen marka muqmad intaba waa la isku dhahaa marka meeshaas aan tagi doonaa ugu dambeyn 4 kiiloomitir aan soo soconay waxaan soo gaadhnay hadeertoole xeradii geela sida idin muuqata caanaha geela qaayib waa meesha laga galo xeradii wataa weli ma aynu gaadhin waxaan jecelahay kaamiramanku inuu ku qabto xogaa baynu marka 4 kiiloomitir loo socdo dhanka wajaale ee magaalada jigjiga looga baxo ayay waxay ka saaran tahay dhinaca bidix laamiga waa socon doonaa insha Allah nakeena hadda waxaan taaganahay ilinkii xirageela waagi hore anigu waxaan ku aqaanay isagoo ood lagu oodo oo xirageel caadi ah oo ahaan jiray laakiin hadda waa xirageel casriyeysan biro qol caadi ah loo sameeyay ma fahantay idhibalniyo gaawowdi kan wagaawihi horeeyay ilaa kula kulmay ma sha Allah geela maanta inaan liso goorma iigu dambeysay 2007 baa iigu dambeysay hal aan dhiijiyo intaas waxaan ku soo jiray magaalo laakiinse weli ma ilaawin dhaqankii ama hadsantahay sax halkan waxa loogu shubaa cuntada ay cunayaan baa loogu shubaa halkan ay ka cunaan ina soo socodsiye wey geeli dhalay waa kan ugaankiisa iyo caraftiisa marka halka soo gaadhin waa la kulmaysaa waraa geel jira ahaan jiray kana aan lise hadda waxaan soo qaatay haruubkii inaan soo lisaan rabaa yaa bas socod wanaagsan ma kartaa maxay tahay daashan walnaas maxaa dhacay niyo حاجة سوقها كاشن قدوق يا حاجة نكنا كاشن دي نكن والله قبصدت dhinaca kan aan taaganahay waxa la dhahaa biskiid baa la dhahaa dhinaca shishana haaneed baa la dhahaa
hadba ninka hadhuubka haya bahaaneed noqonaya ka kalena wuxuu noqonayaa dhanka miskeedka waxa iigu dambeysay hal aan liso 2005 baan dhihi karaa intaas waxaan ku jiray magaalo maanta waxaan chance u helay inaan geela qaayib magaalada Jigjiga aan liso xarga sidan ugu xidhay yani carabi hashatan sida uu aragtaan u jeedaan xagga dambe ayaa laga dabray sidaas waxa loo xidhaa looda waxaan filayaa nin loo leeyahay dabray hashatan geela xagga dambe lagama xidho marka la lisayo kaliya dabar bay leeyihiin halka farduhuna ay shakaal leeyihiin looda ayaa xagga dambe laga dabraa mi cararaysa oo waana istaagin waa farmoog oo ma sha Allah way xagga hore ma taqaan oo taasaa keenaysa dhammaan ilmaheedii meeyay marka waa igadh marka ya sababta keentay in xagga dambe looga xidho hashatan waa hal igadha ilmaheedii gaadhaa jireed ba sida ay noo sheegeen soo ma marka maxay ku gudlanaysaa salaaxitaan waa la salaaxaya kolkaas gool qaadaysa markaas godol qaadaysa okay waxa jira halo oo farmoog oo marka ilmahaas ka dhinto aan loo tigi karin uu jira geel qaran igarka aqoon baa oo igarka aan aqoon ilmihiisu markuu dhinto kuwa wala iska sii deynaya haye geel waa la talaa barkii haye oo maxay haytaay صار ولا قلحة سنك laga diluliya qaar sanka laga diluliya haye saas ku ogolaanaya maqash marka tan maxay ku ogolaatay maxaa harag miyaa u dhigteen may looma dhigin tan waa la salaaxay bas ninka geela ku dhex jira ayaa salaaxay ninka lama salaaxay haye ninkaas gudlan ma sha Allah hal igadana waa ku soo dhaxay ma bilowna Cabdirasaaq wuxuu ka mid yahay mas'uuliyiinta xirada qaayib ee geeleyda ee magaalada Jigjiga Cabdirasaaq ku soo dhaweynaya sidoo kale anagu soo dhaweynaya bal waxa warbixin yar nooga siisaa bal fikradda tan xirada tan iyo magaca kan qaayib sida iiga dhadhamaysa waxaan u filayaa hal magaceed ba loogu magac daray qaayib ma garatay bal kow iyo labo soo ma sha Allah xiradan baduleedka Jigjiga ku taala xiradan badday saad aragtaan idinka laftiinu صح وحرا جيل هذا رد الحس هذا هو وفرديه بجوجا وغادي بجوجته جيلنا ونوعيدي سكل دوانها أنا وضركته كي هذا دليل يكي للسه هذا كان وكيل للسه كير معنا بلا بضبه اوكي كان وكيل معنا هذا اوكي كي كلا دي بدو جوجا وكي هذا كيس هذا على فارق الوسينا يو صح بل جيل كان يضو هدر طول إنك صار هدر طول جوجي باب بلعبنا بالحلقة تشيلالك إيو كنا ولا شيء سهل كان دول كانوا ودول iska barwaaqaha sidii intiisa badan inay abaar dhacda mooyeen xoolo inta badan waxay cunaan kama waayaan marka gala beeru leeyahay beerahaas iska soo daaqaa dhulkan waa iska hawd banka banimada un mooyeen dhulka xagga hoose hawd ka yahay xagga hoose awski baa ka baxaya yamaargi baa ka baxaya geeda badan baa ka baxaya geedaha Soomaaliga soo cunaya markuu yimaadana calafkii anagu aanu diyaarinay ayaa loogu darayaa marka labadii buu isla qaadanaya marka waran iyada dalxiisayaasha iyo dadka halka kan yimaada ma dalxiisayaashu inuu aad bay horta u mahadsan yihiin waxaan leenahay xirada qaayib oo dawladda Jigjiga ku taala ku soo dhawaadaan horta mar walba leena hadii qurba joog noqoto hadii qaran joog noqoto wax qurba jooga oo sideeda oo geel yaqaan ma jira way yimaadaan dadku qurba hadda bay tageen cidiga geel yahasan meesha ma soo martay sidaad hadda ma la tagay cidiga geel yahasan ma soo martay meesha qurba ka geel yahasan ma soo maray way joogay anna waxa la adiga uu geel yahasan aad laga ya 2005 ugu dambeysay 2005 ninkii ugu dambeysay sadii laakiin rag badan oo maxay tahay iskala socda baa jira aan garanay aniga haddaad maanta tiraahdo kala dhigdhig waa kala dhigdhigi karaan way jireen laakiin Awaale waxa uu ka mid yahay dhalinyarada qurba joogta ah ee yimi magaalada Jigjiga maanta chance aan u yeeshay inaan ku kulanno xirada geela Awaale soo dhow walaal haye balka waran maanta waxaad cabaysaa caano fresh caano dhayo fresh ma sha Allah xaqi maxay cabi jireen ayagoo 3 bilood 4 bilood talaad ku jira amal oo caagir iska qaaday waad ku aragtay caano badan qurbaha hilib badan waa ku aragtay wax laga soo lisay iyo maxay tahay ama wax laga soo qalay weli ma aragtay midna ma arag wax laga dhaadhiciyo caano waay caano maanta ayagoo freshan haya okay ma sha Allah dhalinyarada qurba joogta
maxay ahayd taay iyo magaaladii jigjiga iyo balgeelan ما شاء الله waxaa leeyahay ku soo dhawaada wadanka waa wadankiini caana dheer oo fresh wadankiina lagu soo noqdo barwaaqayo nabad baa taala ma sha Allah waagi hore reer baadiye ma ahaan jirtay wala wax magad runta fiican wax kama aqaan wallahi magaalka tahay ciyaalka xaafada waa tahay laakiinse alxamdulillah mar haddaad soo xasustay oo maanta timi ya aad iyo aad waa tahay wali waxa ku dhex jirnaa galihii geela garabkayga midig waxa jooga hiba iyo najax oo kamid ah maanta dalxiisayaasha aanu ku kulanay xeradatan qaayib ee geela hiba soo dhaw bal maanta maxaa halkan maxay sidee kula muuqataa shooyiga maanta aad iyo aad buu qurux badan yahay runtii waxaan u imanay daawada inaan xaggan u imano ciidii baan xaggan imanay si fiican aan ugu ciidnaa rabnaa ma sha Allah maalinteeda maalin ka duwan baan rajaynaa insha Allah ma sha Allah aad iyo aad bal geela see isku tii dabcan xagaa sheedo ma ka aragnaa dhaqashadiisana kuma wanaagsanin reerkeygii may dhaqanin laakiin dushan ka naqaana isku mid baatay hibo adiga sidoo kale maxaa la lisi kartaa maxaa xoolo maxaa soo martay annaga xoolo loo waan dhaqanay laakiin bilis aqaan laakiin riyaa waa aqaana riyaa waa lisi taqaan idahaase may idama dhaqano waa tahay bal in dhalinyarada magaalka joogta ay timaado meelaha xoolaha lagu xereeyo oo ay wax ka bartaan sidee maxaa idinku ugu baaqi lahayd maxaa maanta inta halkan joogteen aad la kulmeed horta way ka duwan tahay magaalada xakan way ka duwan tahay dalxiistayaashu way ka duwan yahay meelaha goobaha loo dalxiis tago xakan aad iyo aad bay u qurux badan tahay runtii ninkii sameeyay aad baan ugu mahadcelinayaa ma sha Allah wax ka duwan buu sameeyay marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarta mar walba jawi macaan dabayl bay leedahay caanihii geelii hilibkii maanta adoo geela kala baran ha ka tegi idinkoo aan geela kala baran ha ka tegi hadda ma garat xataa haddaa isku daydaan inaad listaan waa idiin dhiibaynaa hadda ma fahat soo dhowaada geela kala barta hadhow toole waxaad dhihi doontaan boqol ha nala ka bixiyo laakiinse bal ka waran gabadhaan geel aqoon hadday tiraado intaan nala ka bixiyo dahabkan ka jecelahay in laga bixiyo aniga maanta dahabka ka jeceshay geel dahabkan ka jecelahay sidoo kale dahabkan jecelahay hadda geel maadaama aan dhaqan karin alisi karin dahabkan ka jecelahay 26 hablu waxay taagan yihiin geeli waa ka wareegin dahabkan oo wareegin waxay yaqaaniin bi aadan waa taasna waa si wanaagsan mar haddaydan garan tan qaalin baa la dhahaa tan hal waaye sidoo kale inta tan geela ugu badan oo halka ka jooga waa geel wada dhalay hadda ma fahmay waxa jira geel xalaa jira nirgahoodii baktiyeen ama gaari jeeray ama dar alle isaga baktiyay oo misana la maalayo ka waran taas sida idin la tahay عليس لقى بمية والله لسه يا هذا هالشيء هلك كنت أجنيد والله برشة هذا يقول الرئيسة من أرق محن يعني جيل ميل لقول دقة من أرق أنا أقول خاصة منه دقان مركز حاجة العيس ومركز ده هذا ما شاء الله سود هذا وبرانيسا جيل وحيابها وكم دي هاي مقرانيسا حولها مركز نيف المه كبحه جيل والله سيما لكرا والله فربرا هي تاي إنك كل حجرة يا برايا sida inay kali ahaan gudlato uu salaaxaya marka uu salaaxo oo iska gudlanaysa marna hal maxaa la dhahaa hasha dhashay oo kale hasha ilmaha dhashaba hal la dhahaa hal oo dhan waxa la dhahaa wixii oo wax dhalay oo dhan hadda ma garat maxaa la dhahaa wixii duma wixii ragana waxa la dhahaa awr ha hadda ma waxaan oo dhan waa halo marka waa wada irmaayin waxa ku jira qaalmo yar baa ku jira qaalmana waxa la dhahaa ha جيل وحوي ومجع جود والدمر دمر سو مجع جود ما دمر كم يمسوا كلا بحال جبر إسلام إنا يريا قشانتي وكا أنتي وي مجع جود جيل بالس كلها لكن سوى كردو حلقة واتنو إني مردل تهاي تاسو إني لبردل تهاي تاسو إني كبدن تهاي تنو ولي معورن وجبرير تاسو يري سدير هذا ده سؤال شو بيدين بس كل قرن إذا وحكوا كل قرن هي أنا هرت قل جيران هانشري واقر هذا ما فهمت حوله أنس هو ما أنت ما تقرن سنوا ويجوا يريهن مركا وكلا قرنا يا ما فهمت هذا سيسكتي لا هذا وسكو في عنه لا هذا وحكت متهاي وحيابها حولها وقلنا صح هذا سيدو كله وح قرب كي جمديك شوجا محمد وكمد عدل يارتي هراء جلي ده حد يرتفع المجال كنقط عندي كرا سمع محمد بل جل حلمك وجود بس محمد قالني هون وهذا waxay ugu dambeysay ilaa 10 sano 10 sano qiyaasada kee wax ma ka xasuusata
waxyaalo fiican baa ka xasuustaa haye kow iyo laba maxaad dhihi kartaa bageela ama hadday hees noqoto ama hadday noqoto bageelo imis horta cabitaan ahaan uu qadi karaa niyo geelo cabitaan ahaan ilaa muddo bil haye qiyaasatan sida saxda haye ayuu geelo qadi karaa haye marka waxa weeyaan waqtigii geela maxaad ku xasuusatay waqtigii geela dabadhoon ma soo martay dabadhoon waa soo maray haye dabcan waxa weeye sheekooyinkii kugu qisooyinkii waqtigii aad geela aad dabadhoonka ahayd ama geela xirinaysay bal waxyaabihii kula soo maray kow iyo labo ama maalintaas la dhihi lahayd maalintaas kugu adkayd geel ya niyo wallaahi waqtiyo adag horta geelu dee waqti walba haddaad geel jiro tahay ama dabadhan soo martay ama geel jiro weynaad soo martay waxyaalo adag baad kala kulmaysaa sidoo kale waxaad kala kulmaysaa inuu dee geelu saan ognahay waa guuraa mar walba uu rafaadkiisu badan yahay hadda geeliyoo dee la casriyeeyey baan aragnaa oo reer magaal laga dhigay kan waa geel reer magaalaan dhihi karnaa laakiin geeli baadiyaha isagoo dee roob da'ayo ama jir da'ayo sidaad u taqaanaadba ayaa mataqaanaa go'aaga cad ayaa daba qaadan jirtay marka waqtiyadaas niyahow aad bay u adkeed nolosha laakiin haddii geel la casriyeeyey baan aragnaa loo soo dalxiis tegayo halka loogu imanayo laakiinse geelii hore ruubkaa la daba qaadan jiray iyo caagadaada biyaha ah wax yar baan arkaa inuu kaamiramanku soo raacay aan jeclaan lahaa soo soco cabdi kaamil maxaa xadhiggan sidan ugu xidhay يعني عربي hashatan sida uu aragtaan u jeedaan xagga dambe ayaa laga dabray sidaas waxa loo xidhaa lo'da waxaan filayaa nin loo leeyahay dabray hashatan geela xagga dambe lagama xidho marka la lisayo kaliya dabar bay leeyihiin halka farduhuna ay shakaal leeyihiin lo'da ayaa xagga dambe laga dabraa mi cararaysa oo waana istaagin waa farmoog اوه ما شاء الله واي حق هور متقان اوه تاسا كينيسا دمان ilmaheedii meeyay marka waa igad marka ya sababta keentay in xagga dambe looga xidho hashatan waa hal igada ilmaheedii gaadha jireed baa sida ay noo sheegeen Soomaa hay marka maxay ku gudlanaysaa salaaxitaan waa la salaaxaya kolkaas gool qaadaysa markaas gool qaadaysa okay waxa jira halo oo farmoog oo marka ilmahaas ka dhinto aan loo tigi karin wuu jira geel qaran igarka aqoon baa oo igarka aan aqoon ilmihiisu markuu dhinto kuwa wala iska sii deynaya haye geel waa la talaa barkii haye oo maxay ay tahay صار ولا قلحة سنك laga dalooliya haye saas ku ogolaanaya maqash marka tan maxay ku ogolaatay maxaa harag miyaa u dhigteen may looma dhigin tan waa la salaaxay bas ninka geela ku dhex jira ayaa salaaxay ninka lama salaaxay haye ninkaas gudlan ma sha Allah hal igadana waa ku soo dhex arkay geela waxyaabo badan oo caalamiya ba meesha ku dhex jira halaha kan ololaya waxa ay la olonayaan nin gal jira aan ba garanaya laakiin sinin aan garanayn loo sheegi maayo halaha kan waxa ka maqan ilmayaashoodii sida dartood bay u ololayaan cida geelana olol baa la dhahaa hadhow tolo qaar baa dhihi doona camaad maxay ay tahay qaylo iyo hadda ma fahanteen hashatan shishe soo wareeg hashatan koor baa ku xidhan ama aleen علشان إن لجود مركز حد ماشي أي مرة يسوي إن الأوجاده بالله وجود تلاجل هل كان صدق لو حكود ديار سان فرده فرس كان حد الله هين سينا يا هي تاي حرجة كره قريبة في العيا لقط اللاجا بحال كجرينا يا واجي هو فرده ولا شكالي تشري محاوي فرس كان قورته يلقط تسوي حدنته فرده بحشوجا أو دنيرة ده يعرض تلسارة يو هي تاي ولي وحلا قلت ترى أيامه عيدة تاسانا كينيسا إن عروضها هالك كان لكان أو فردها لصار بفهم مو ذيك رئيسة مو ذا هذا مو ذيك رئيسة هذا يا ما في عينها سجى يوي فوق وأيامه كيف يعني سجى يوي فوق
فرسك في عن سوما hadda waxa ay noqotay habeenimo waxa naloo keenay muqmad ama colob ama ilka yar hadba saad u taqaan qof kasta iyo deegaankiisa iyo oodkac waxa anigu waxaan u aqaanaa oodkac waa u aqaanaa muqmad waa u aqaanaa ilka yar waa u aqaanaa colob waa u aqaanaa marka bal adiguna waxa aad u taqaanid commentiga nagula soo wadaag iyada iyo roodhi baa naloo keenay iyo shaahi waxaanu sugaynaa hadda toole waa caanihii geela mar dhow dab ayaanu shidan doonaa halka kan ayaanu caawa ku caweysimi doonaa waxaan naloo keenay gaawo caana ya ninkii jira wuxuu yidhi dhuday caana laga soo liso yara dhanaadaan buu yidhi nin dhandhamiye waa garanayaan dhulay qaboojaan haddana kuwana waxa weeye waa dhiilashii weeye calashaan koob lama isticmaalo bahalada tan oo la soo culay ayaa lagu shushubtaa caanaha 4 nin baanu nahay kan ayaan inoogu shushubaya ragga ayaan caanaha u shushubaya الله niman geel dhaqan eleley niman geel dhaqan eleley gaari waayigi eleley gaawaan u sidan ragga caanaha sisi الله يا وكاس مش ونوع رقبان حلو دوش ديا بردو waxaan gelin doonaa ruuxabaalka ama dabaskala boodki qof walba waxa uu yaqaano ba mardhow gelin doona xolod baa noo shidan waqtigan oo kale waxa la dhahaa caweysin baa la dhahaa waa xilliga mardhow waxa loo kici doonaa in geela la liso misana dib loo liso marka bal ka waran haddii aad isla heshin muqmad caano iyo xolodkaas iyo weliba shaah rag shaah yaqaanan baa meesha ila jooga dhalinyaro badan baa jirta caanihii cabi weyday oo kale caloosha nagu xanuunaysa shaah bay yaqaaniin dhalinyarada waxaan leeyahay shaah xaafadu kaaga horeeya haddaad u baahan tahay laakiinse caanaha iyo muqmadda meesha laga dhameeyo ya ani waa ka waxaan marayaa malaakii labaad mise kii saddexaad oo caana marka waxaan ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay ninkii abwaanka wuxuu yiri dhuday caana laga soo liso buu yiri yara dhanaanaaday nin dhandhamiye wuu garanayaa dhulay qaboojaane qodxihii dhalaannimo kugu mudaa kaaga soo dhici calashaan yaraantaada magaranaysa ciyaalku marka iska yaryar yihiin ay meelaha cagacadaan ku ordaan qodxayo iyo waxaas oo dhan baa mudan calashaan caanaha darteed marka aad cabtid qodxahaas oo adigoo weynaan aad ku cabtid baa kaaga soo dhici doona waxaan joognaa duleedka magaalada Jigjiga dhanka kaamiradu waa Cabdi Kaamil waxaan ahay ficil burkuud la socdo wanaagsan